aan ku bilownay weerarka lagu qaaday hotel xayaad ayaa waxay noo suurta gashay inaannu ka waraysanno cabdulqaadir maxamuud nuur faatul oo ka mid ah milkiilayaasha hoteelka xayaad. haaruun macruuf ayuu ugu warramay khadka taleefonka. bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam. walaal marka hore horta waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhibaatada ku gaartay hotel xayaad anoo ku hadlaya shirkadda magaceeda hotel xayaad. waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto, ehelkii ay ka dhinteen iyo annagana sabri ibaan allah naga siiyo, intii dhaawacantana allaha bogsiiyo. marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala khayran u rajeynaynaa dhammaantood kasta markaynay ahaayeen dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma. marka waa u tacsiyadinaya fursaddan aad isiidan oo qaaligaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadka soomaaliyeed oo amba ii yimid ama taleefonka dibad iyo guda igu soo wacay. waa u mahad celinaya xanuunka ay nala qaybsadeen iyo dhibaatada. waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. marka aad iyo aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin, waa nala xanuunsateen. ilaahay jannata firdowsa ay kugu bedelo, waana mahadsantihin. waayahay weerarku markuu dhacay adigu halkee baad joogtay? xaggee laga soo galay hoteelka? aniga maanan joogin hoteelka, meel ka foga xooga ayaa u jirtaan joogay. dhinaca shishe irdo badan uu leeyahay ayaa laga soo galay oo dhanka dabcan adugu haaruunu inaadnan imaanaan umalaynaahe jihadaas dhinacaas bariyaa laga soo galay sida ay lay sheegay. halkaasna marka dhibaatadu halkaasay ka bilaabata. waa dhinaca lambar 4? dhinaca lambar 4. waayahay marka imise qofaa soo weerartay hoteelka? markii weerarkuu dhacayay yaa ku sugnaa hoteelka? hoteelka waxaa ku sugnaay dad sida aad ogtahay soomaalidu jimcaha iyo aad bay usoo baxaan galabta jimcaha oo habeenka sabbigu soo gelayo. dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh. wuxuu ahaa hoteel banaankiisa fadhi weyn leh. halkaasay dadku buuxeen, adiga ilaa boqolaalay gaarayeen. maqribka markay dukadeen musalla ku yaal masaajid lagu dukado ayay kabacdi meesha soo fadhiisteen ayagoo danahooda ay ka sheekaysanaya, qaarna doonaya inay cishaha ku gaaraan meesha. marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday. marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda, laakiin shaqaalihii maxaa dhibaato ah oo soo gaaray? runtii dhaawacyo ayaa jira iyo hal shaqaalaha ka midana uu dhintay. dhaawacyana way jiraan. alxamdulilah ilaahay waa yasiray, laakiin dhibaatada waxay u badneed dadka yimid oo kastamarka ayay u badneed dhibaatada. waa gartay. qofka shaqaalaha idinka dhintay midnala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay? wuxuu ka mid ahay waardiyaha. waa gartay. marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo? ilaaladii sidee lagu soo dhaafay? hoteelku horta waa hoteel shacab. wuxuuna ammaanka nima sugaya bisaa jooga maahan ee looguma xere dowla maahan oo la adkeynayay. waa ammaanka dadku inta badan waa hoteelada muqdisho ammaankooda la ilaalshaa. marka ma ahayn ciidan saas u weyn ma ahayn. marka way fududee sida lagu soo dhaafi karo. waa gartay. bal dadka u kala caddee. dad baa waxay leeyihiin waxaan ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen, qaraxyadu gudaha iyo bannaankaba way ka dhaceen, iridda way ka dhaceen. bal kala caddeesay wax u dhaceen? walaal waxaan kuwa caddaynaa hoteelkan system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga. waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan. qofka markuu hoteelka yimaado baasaboorkiisa cidda keentay ayaa la xereeyaa, dukumentigiisa ayaa la xereeyaa. layskama dejiyo qof aan dukumenti laga xerayn. marka ma jiraan barnaamijkaad. waa barnaamijyada la wareejiyaha oo social media beri aan qabsaday waan maqlaynay. arrintaas waxba kama jiraan. cid hub ku kaadsatay amba deganeed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. waa aadan ula soconnaa. waa dhibaatada taaganay ka mid tahay. marka arrintaa waxba kama jiraan. waxaan caddaynaynaa inaan waxba ka jirin arrintaas. waa gartay. ciidanku imise daqiiqa kadib markii weerarku uu bilowday ayay yimaadeen? gurmadkii ugu horreeyay goorma ayuu yimid? dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka. bal ka hadal qodobkaas. ciidanku xilligay ama waktigay soo gurmadeen
iyo sida ay hawshooda u fushadeen? runtii aniga banaanka ayaan liigu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba ah koray xireen banaankaani mid anigu qiyaasta waxuu ku qiyaarsayaa nus saac hal saac oo wax dhimar qiyaasta meelahaasaan leeyahay inay yimideen haddii marka wax aad baa iila yareed aniga markii ay yimideen inkastoo iga fogaayeen oo anaga meel nagula helshay hadii qiyaastii dad meesha ku jira way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen marka saasay ahayd. marka weerarku markuu dhacay oo 7 fiidnimo xilliga muqdisho meelahaas ahayd hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku sidaas miya? barabiya saas lay sheegay anigana waa qiyaasay inkastoo xaaladdu iska kacsaneed oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladdu markay saas tahay oo waxyaalaha saacadda meeqa saac iyo waxaas ugu xisaabtamay. waa gartay marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen? wallaahi muddo badan baa jirtay de anagu dadku hadday shacab yihiin inta badan markii meesha laisku haysto lama ogola inay soo dhowaadaan faniinka axbada iyo waxbaa jira marka horta dad badan baa ka badbaaday marka saacado badan way haysteen dhibaato dhaqaalaa dhacday hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay saacadaha dheer waxay keeneen hoteelka inuu burburo waxyaalaha la adeegsanayay oo aad u cuslaay iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa sidaas waa saayiday ahayd marka arrin waxaa dhacday oo aad maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xitaa muddo 2 sana dhibaatada hoteelka u dhacday haddaad fiirido waa ka bilow meeshii marka hore laga bilaabay marka arrintaasna arrin aad culus oo na soo gaarto waa ka shirkad ahaan. qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday mise waxaad aaminsan tihiin inuu ka mid ahaa un hoteelada faraha badan ee la weeraray? waya annaga wax gaara oo bartilmaameed oon anaga isu ogna ma jirto waxaan anaga isu ogna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure ee bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay marka wax gaara oo anaga aan ognaa ma jiraan. cabdulqaadir maxamuud nuur faatul oo ka mid ah milkiilayaasha hotel xayaad waxa uu warramayay haaruun macruuf.